iyadoo maalmihii ugu dambeeyay bogga hore joornaalada kala duwan ee ka soo baxa magaalada Hargeysa ay ku soo baxayeen khilaafyada kala duwan ee u dhaxeeya arrimaha diinta kaasoo maalmihii ugu dambeeyay ka taagnayd magta dumarka iyo waliba ragga oo wargeysadu inta badan iyo culimada kala duwan ay ka hadlaysay ay soo bandhigayeen ee telefishinka caalamiga ee Home Cable TV waxa uu saaka wax ka weydiiyay wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland bal aragtida wasaaradda iyo waliba guud ahaan aragtida xukuumadda iyo baaq waliba saxaafadda u dirayo waxaan ka hadlaynaa anagu waa aragtida xukuumadda oo runta ah waxaanu ka hadlaynaa aragtida qarankan iyo dalkan sida u aragto muran diimeed oo dhaca anagu xukuumad ahaan iyo dawlad ahaan iyo dad ahaan ummad ahaan toona diyaar uma nihin muranka diintu inooma wanaagsana muranka diintu wuxuu keenaa khilaaf xun oo cirq yeesho weeyaan oo dhammaadkiisu aanu fiicnayn diinta sida dooda kalaba la isugu qaban karo aragtiyo mahdabo iyo dood wax cilmi la isweydarsanayo way leedahay oo waa la sameyn karaa culimada waxaanu ugu yeedhaynaa wasaaradda awqaafta iyagoo kaashanaya ama wasaaradda awqaafta ku xidhan inay arrimaha diinta had iyo jeer aanay u isticmaalin media waxaanu inoogu fiicnaan dhinaca nabadgelyada waxaanu inoogu fiicnaan dhinaca wada noolaanshaha waxaanu u fiicnayn diinta lafteeda aanu u fiicnayn waxaan ugu yeedhayaa saxaafadda oo aan leeyahay min fadlakum ha isku dayna in ay diintu noqoto meel aad xambaartaan khilaafkeeda dhinaca kalena gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Soolja Xasan Maxamed Yuusuf ayaa isagana Home Cable TV wax ka weydiiyay bal baaqa kala duwan ee la xiriira dhinaca diinta ay isaguna saxaafadda iyo waliba culimada u dirayo waxaana gudoomiyaha Xasan uu ku jawaabay run ahaantii waxaan u arkaa inay tahay arrin aan wanaagsanayn arrin aan fiicnayn marka aynu ka eegno dhinaca cawaaqibka dhinaca aayaha ay yeelanayso waxay ku dambeynaysaa arrinteenu inaynu noqono laba group ama intaasoo group oo maxaan ku lahdaayay khilaaf dhinaca diinta uu yaalo waxaynu ku dambeynaa sida Soomaaliya ay tahay maanta oo kale Maxamed Kuraasi Home Cable TV wasaaradda warfaafinta Soomaaliland